waa casharkii labaad physics-ka chapterkiisa koowaad oscillatory motion-ka. casharkii koowaad waxaan uga soo hadalnay oscillatory motion waxa uu yahay, periodic motion waxa uu yahay, iyo tusaalooyinkooda. waxaan ugu dambeeyey assignment-gan oo aan isku dirnay arday badan oo kasoo shaqeysa ayaa jira, maasha allah wayna soo saxeen. assignment-ga marka su-aasha koowaad jawaabteeda waxaa soo bixi doonto eber hal lix lix second, maadaama period lagu diray halbeega wuxuu noqon doonaa second, ama sidoo kaleeto markii lagu dhufto 1000 oo ah millisecond ahaan markii loo bedelayo waxay noqon doontaa 16.6, kadibna lixdaas dambe soo buuxi 16.7 ayay noqon doontaa. su-aasha labaad ayadana waxaa lagu siiyey frequency ayaa lagu diray, waxaana lagu siiyey period oo ah 2.50 times 10 to power minus 3 second. haddaba waxaa raadaysaa frequency hal ayaad waxa u qaybin doontaa qiimahaas, asna waxaa kusoo bixi doono 400 oo hertz. su-aasha saddexaad ayadana waxaa lagu diray period iyo frequency, waxaana lagu siiyey number of oscillation iyo timekii waa lagu siiyey labaduba. kan koowaad oo ah periodka markii 10 loo qaybsho 40 waxaa kusoo baxaya eber dhibic 25 second, halka frequency-ga markii 40 ka 10 loo qaybina kusoo bixi doonto 4 hertz. dad badan oo arday badan oo jawaabaha si sax uga shaqeeyana waa jiraan, maasha allah. cashirkeena maanta marka wuxuu quseyn doonaa simple harmonic motion, socod wada jira ee fudud ayuu quseyn doonaa. haddaba waxaan dhehnaa marka the oscillations of a system, wareega habka uu leeyahay systemkaasi, in which midaasoo the net force awoodaha laisku soo wada daray, awoodaha totalka oo laisku dardaray oo loo adeegsan doono in lagu dabaqa shay can be described, lagu sharaxayo ama lagu sharixi karo by Hooke's law, xeerka ninka la yiraahdo Hooke, are of special importance, waa kuwa si muhiim gaar u ah maxaa yeelay they are very common, waa kuwa ayaga aad u badan. noocyada marka tusaalooyinka noocyadiisa oo uu leeyahay oscillate simple harmonic motion muxuu yahay marka. typical example of repetitive motion, noocyada examplada ama tusaalooyinka uu leeyahay socodka soo laalaabanayo of the human body ee jirka aadamaha waxay kala yihiin: 1 heartbeat qaraaca wadnaha, 2 breathing iyo sidoo kaleeto neefsashada. waxaa kaloo jiro walxa fara badan ee si noqnoqod leh u dhaqdhaqaaqo. many objectives walxa fara badan move ayaa waxay u dhaqdhaqaaqaan ama ay u socdaan in a repetitive way, hab noqnoqosho leh. walxaas maxaa ka mid ah haddaba? sida waxaa ka mid ah 1 swing, 2 rocking chair, 3 iyo clock pendulum. swing oo ah wiifowgii aad taqaaneen ama laalacshoonka waxaa loo yaqaanay. 2 rocking chair oo ah kursigii hore iyo gadaalba u liicliicayay. 3 oo ah clock pendulum, saacaddii walhanaysay ama saacaddii derbiga kasoo derbiyada lagu dhajiyo oo walhashada sameynayso. marka intaanba waa walxo sameynayo repetitive motion, socod soo noqnoqonayo sameynayo waaye. haddaba simple harmonic motion muxuu yahay? simple harmonic motion wax kale ma ahan, waa socodka wada jira ee fudud. this tani is a type, waa noocyada kamid ah nooca of motion ee socodka under the influence, taasoo hoos imaanaysa lagu dhahay saameynta of restoring force, awood kaydka described ee lagu sharaxayo by the Hooke's law, xeerka ninka la yiraahdo Hooke. haddaba restoring force oo maxaad ahayd is a force, waa awoodda ama xoogga which acts, taasoo u ficiltamaysa ama u dhaqmaysa to bring in ay keento a body walax to its equilibrium position, walaxda in ay keento barta dheelitiranka, micnaha waa bartii ee ka dhaqaaqda ee zero ahayd mean positionka meeshaan dhihi jirna waa ayay keeni doontaa. halkaasna waxaa ogaataa walaxda barabixeeda ama displacementigeeda waqti xaadirkaas wuxuu noqon doonaa 0. in other words, haddii si kale aan u sheegno marka, the simple harmonic motion, socodka wada jira ee fudud, can be divided as waxaa lagu qeexi karaa lagu dhahay and whenever it is acceleration, mar allaala markii karaarkiisa is proportional uu saamigal ku yahay to its position, booskiisa ama barabixiisa, and is oppositely directed, jiha cagsiyeysanna ku yahay lagu dhahay to the displacement, barabaxa from equilibrium position, laga soo bilaabaa lagu dhahay barta dheelitiranka.
maxaa ka mid ah marka tusaalooyinkiisa tusaalooyinka uu leeyahay simple harmonic motion waxaa ka mid ah kow kan ugu hore oo ah simple pendulum walhade fudud walhadaha fudud wuxuu samayn doonaa shaygii in uu sameeyo marba gees ilaa iyo gees inuu u dhaqaaqo ugu dambeynna uu kusoo laabto mean positionka ama equilibriumka barta dheelitiranka inuu kusoo laabto laba waxaa ka mid ah mass spring yaa ka mid ah mass spring waxa waaye moolo culeys lagu rakibay culeyskaas oo markii lasoo jiido culeyska ayadana sidoo kaleeto socod hore u socod iyo gadaal u socod ee samayn doonto swing oo ah wiifoogi aa wada taqaaneen sidoo kaleeto steel ball rolling in a curved dish banooni qalin ka samaysan kaasoo ku wareegsanaya lagu dhahay weel xoodan iyo sidoo kaleeto a steel ruler mastarad ayadana qalin ka samaysan oo clamped to a bench lagu dhajiyaa lagu dhahay miis lagu dhajiyay kadibna markii qaybta hore intii dhag laga siiyo socodkaas ee gariirka lah ee samaynaysa ayadana waxay ka mid tahay tusaalooyinkeeda simple harmonic motion mass attached to a spring marka waxaa jiro markii moolada lagu dhajiyo culeys maxaan dhihi doonaa marka mass culeyska attached ee ku dhagan to a spring moolada as a model tusaale ahaan for simple harmonic motion socodka wada jira ee fudud consider waxaa tixgelisaa lagu dhahay a block of mass xeermo culeys ah kaba soo qaadba inay tahay m attached ee lagu dhajiyey to the end of a spring dhamadka moolada with the block free to move taasoo culeyskii uu si xorriyad leh ama si madax bannaan oo u dhaqaaqayo on a horizontal qaab jiif ah frictionless surface ooga aanan islis lahayn and as shown in the figure below sida kaaga muuqda saxanka ama sawirka hoos kaaga muuqdo when the spring marka mooladaasi is neither stretched nor compressed markii mooladaasi aanan la kala bixinin ama aanan la isku soo aroorin the block is at the position culeyska shaygaas wuxuu taagan yahay lagu dhahaa booska colin lagu magacaabo equilibrium position waa barta dheelitiranka waxaadna ogaataa markaas shayga barabixiisa ama xkiisa inuu yahay zero ever inuu yahay wino waxaan naqaanaa from experience khibrad ahaan markaan u fiirino ama waayo aragnimo ahaan markaan u fiirino that such a system walha noocani oscillates inay u wareegsadaan back and forth hore iyo gadaal inay u wareegsadaan if disturbed haddii la labo ama la qaso from its equilibrium position lagana labo ama laga qaso bartiisa dheelitiranka tusaalaha marka sawirka shaxanka ama aan wax yar sharaxaad asna ka bixino waxaa ogaataa sawirkani kow x-ka marka ay tahay plus forcigana wuxuu noqon doonaa minus ama si kale aan u dhahnay x-ka markii uu u socdo dhanka jihada right-ka forcigana wuxuu aadi doonaa jihada leftiga cagsi isku yihiin macnaha labo b x ama displacementiga marka uu yahay zero forcigana at the same time wuxuu noqon doonaa zero c x-ka marka uu yahay minus forciga wuxuu noqon doonaa plus ama aan dhahno x-ka marka uu jiro ama oo u socdo jihada leftiga forcigana wuxuu aadi doonaa jihada right-ka micnaha waa lid ay isku yihiin cagsi ay isku yihiin xeerkan oo ka hadlayo in markii x-ka ee u socdo dhanka bidix forcigana uu aadi doono dhanka midig ayaa waxaa loo yaqaanaa Hooke's law xeerka ninka la yiraahdo Hooke xeerkaas muxuu yahay marka aan isla fiirino Hooke's law xeerka ninka la yiraahdo Hooke status waxa uu sheegayaa that in the restoring force awoodii kaydsaneed applied ee lagu isticmaalo ama lagu dabaqay by a spring moolo is proportional ee ku tahay saamigal to the displacement barabaxa of the spring ee mooladaasi and opposite in direction jiha ahaanna waxay ku tahay cagsi micnaha forciga markuu u socdo dhanka midig x wuxuu aadan doonaa dhanka bidix saas awgeeda forciga iyo displacementiga waxay isku yihiin jiha ahaan cagsi ay isku yihiin qaacidada marka waa kana force wuxuu ku leeyahay minus kx halka f ay u taagan tahay restoring force awoodii kaysaneed kayna u taagan tahay spring constant waxa la dhaho
ama sidoo kaleeto ma force constant spring constant wax kale ma ahan waa cabirka adkaanshiyaha moolada ee leedahay waxaa loo yaqaanaa spring constant ama force constant x-na waa barabixi ama fidiskii extensionkii shayga markii la kala bixinayo kala bixiskaas inta uu gaarayo cabirkeeda ayaa waxaa loo yaqaanaa ayadana sidoo kaleeto x ayaa loo yaqaanaa tusaalaha kood aan ku bilaawno marka waxaa la what is the magnitude waa maxay qiimaha of the force ee awoodda required looga baahan yahay to stretch in lagu kala jiido 20 centimeter long spring moolo dhirirkeedu ee tahay lagu dhaha 20 centimeter with a spring macnaha spring constantigana uu yahay lagu dhaha with a spring constant yaa meeshaas laga rabaa spring constantigana uu yahay 100 newton per meter waxaad ogaataa marka hal mar qaacidooyinka aan dib ugu soo laabto qaacidadan markii lagu siiyo mar walba waxaad ogaataa haddii qaacido lagu siiyo inaad qaacidadaas qaacido kasoo dhex saari kartaa laga rabaa hadda force qaacidadeeda waa tana waxaa lagu diri karaa spring constant oo ah k maxaan ku heli karaa marka qaacidadan aan haysano ayaa waxaa kasoo dhex saaraynaa qaacidada k waa lagu dhegan yahay waxaa ku dhegan x oo ah displacementiga shayga u baahan tahay ma ahe shayga ku dhegan ayaa meel walba u qaybin doontaa intan x ayaad u qaybinaysaa intan x ayaad u qaybinaysaa x iyo x oo isku baxayaan k marka wuxuu kula mid noqon doonaa force oo loo qaybshay x haddii x lagu diran ayadana sidoo kaleeto x waxaa ku dhegan k meel walba k u qayb maxay noqonaya markaas force oo loo qaybshay k qaacidooyinkaas meel ku calaamaysa marka force haddii lagu diro k oo lagu dhafto x ayaa isticmaali doontaa haddii k lagu diro force oo loo qaybshay x ayaa isticmaali doontaa haddii x lagu dirana force oo loo qaybshay k ayaa isticmaali doontaa qaacidooyinkaas marka meel ku calaamayso waxaa kale ogaataa halbeega force sida aan naqaano waa newton labo halbeega spring constant oo ah k halbeegis asna wuxuu noqon doonaa newton per meter x oo ah displacementiga asna halbeegis wuxuu noqon doonaa meter okay hadhow markii aan ka shaqeyno exampladaasi wax halbeeg oo inuu culays nagu noqdo ma rabno hadda sii ogaa marka halbeega force waa newton halbeega spring constant waa newton per meter halbeega x ama displacementigana waa meter example-keena marka aan ku laabano example-ka marka waxaa lagu diri doonaa waa maxay qiimaha uu leeyahay ama magnitude-ka uu lahaan doono force-gaas oo looga baahan yahay in uu kala jiido moolo dhirirkeedu ay tahay 20 centimeter oo loo adeegsanayo spring constant-tigana 100 newton per meter waxaana laga dhigi doonaa dhirirkeeda 21 centimeter macnaha moolada asal ahaan 20 centimeter ayay ahayd waxaana laga dhigayaa markii la kala jiido 21 centimeter oo waxaa lagu dari doonaa 1 centimeter oo qudha markii example aad ka shaqeynaysid xasuusnaa marka qodobadan waa in aad givenka aad la soo baxdaa labo waa inaad isweydiisaa waxa lagu diri doono si aad u soo heshid waxyaabaha aad u baahan tahay ku dhameystirin sababtoo ah waxaan sameyn doonaa isbarbardhig ayaan sameyn doonaa isbarbardhigaas oo la iskula barbardhigayo qiimaha givenka lagugu siiyo oo ah qiimaha la yaqaano iyo qiimaha lagu diro oo ah qiimaha aan la aqoonin labadaas shay ayaa isbarbardhigi doontaa waa isbarbardhig la isla barbardhigayo qiimo la yaqaano iyo qiimo aan la aqoonin si loo soo helo qiimihii aan la aqoonin qiimihiisa haddaba qiimaha la yaqaan haddii ay wax kaa dhiman yihiin waxaa kugu adkaan doona inaad soo heshid qiimihii aadan aqoonin qiimihiisa inaad soo heshid way kugu adkaan doontaa markaas givenka marka maxaa lagu siiyey x1 oo ah maxaa leeyahay moolada dhirirkeeda originalka ah iyo x2 oo ah dhirirka la geyn doono k oo ah spring constant asna waxaa lagu siiyey 100 newton per meter force-gana waa lagu diri question mark givenkaaga waa haystaa force marka isweydiin maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa k oo lagu dhufto x ayaa lagu helaa maadaama k oo lagu dhufto x lagu helo waxaa isweydiinaynaa marka ma haysanaa spring constant ma haysanaa yes 100 haysanaa x ma haysanaa 2 x haysanaa laakiin waxaa kasoo dhex saaraynaa hal x kasoo dhex saaraynaa x-ka waxaa lagu helaa dhehi doontaa x-ka labaad oo laga jira x koowaad labadii qiimo lagu siiya kala jari doontaa 1 centimeter kusoo bixi doona xasuusnoo marka centimeter waa inaad u bedeshaa meter okay centimeter markii aad meter u bedelaysid isweydiin marka meeqa ayaa u dhexeyso centimeter iyo meter meeqa u dhexeyso waxaa u dhexeysa 100 boqolka ma lagu dhufanaya mise waa loo qaybinayaa hal boqol u qaybi waxaa kusoo baxaysa markaas
0.001 mitir ayaa kusoo bixi doonto. Okay, hadda waa shaqey kartaa marka. X-na waa haysataa, K-na waa haysataa. Labada qiimo lagaaga baahnaa waa haysataa. Maxaa sameeya markaas? Isbarbar dhig labadooda. Waxaa isbarbar dhigaynaa force oo ah qiimihii aan la aqoonin iyo Kx oo ah qiimihii la yaqaano. Markii ay isbarbar dhigno maxaa soo bixi doona marka la ultimo isku dhufo K oo ah 100 newton per meter iyo waxaad ku dhufataa X oo ah 0.01 mitir iyo mitir oo isku bixi doonaan maxaa ku soo harayo newton. 100 waxaa ku dhufataa 0.01 waa 1 newton. qiimihii aan la aqoonin qiimihiis ayaad sidaas ku haysataa. saan filaa example-kaas waadix waayo waana la fahmay. waxaan tagaynaa marka qaybtan ayaa ku jooji doonaa. waxaa lagu diri doonaa assignment marka isku soo day assignmentigan. assignmentiga laba su'aal baan idinkugu diray. labada su'aal waa inaad isku soo daydaan fadlan yaa laga seexanin. markii laga soo shaqeeyo kadibna ha lay soo diro si aan idinkaga xaqiijiyo qofkii wax ka qaldayn iyo qofkii u saxsan yihiin. su'aalahana waa kuwaasa. intaanan ku joojinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.